rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri dulmiga waa saddex mid aanan la isku dhaafeenin oo ah shirkiga qaala Allahu ta'ala inna shirka la dulmun cadiim midkiisa labaad oo dulmiga la isku dambi dhaafayo waa dulmiga qofka bini'aadanka rabbigiisa ka galaya midkiisa saddexaad waa dulmiga aanan hareynin oo qofka bini'aadanka qofka kale bini'aadanka uu ka galaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay midkiina iigu dhow maalinta qiyaamaha uu jecelahay midkiina akhlaaqda wanaagsan midkiina maalinta yawmal qiyaama iigu fog aan ugu nacbahay waa midka warka badiya isla weyna rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay 2 rakacadood aad dukata adigoo cadeysto waxay ka qeyr badan tahay 70 rakaco aad dukata adigoo cadeysanin rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay qofkii salaada cishaa kusoo dukada jameecada wuxuu la mid yahay habeenkii kalbar isagoo qiyaamul leyl u taagan qofkii salaada subax kusoo dukada jameecada wuxuu la mid yahay isagoo habeenkii oo dhan qiyaamul leyl u taagan rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay jannada waxa ku yaal albaabkaas uu baabur riyaan waxaana ka gali doona dadka sooman mana ka gali doono qof kaleete waxa la dhigi doonaa aaw dadkii soomanaa way wada galayaan ilaa intuu ka galay kan ugu dambeeyo marka uu galo waa la xiraa qof kaleetana ma ka gali doono rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay jannada waxa ku yaal qolalkaas oo banaankooda laga arkaayo gudahoodana laga arkaayo banaanka nin reer miyi ayaa wuxuu ku yiri nabiga yaa iskala qolalkaas midka hadalkiisa wanaajiya midka dadka baahan qoodiya midka soonka daayima iyo midka habeenkii salaada u soo istaaga dadka markay hurdayaan adduunyada hadii aad qof kala saaxiibaysid kala saaxiib dadka wanaagsan hadii aad maqan tahay way ku xiisaan hadii aad dambi gashidna way ka celiyaan hadii ay duceysanayaanna way ku duceeyaan oo mu hilmaamaan rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay alla wuxuu yiri haduu jeclaado adoonkayga la kulankiisa anna waxaan jeclaanaa la kulankiisa hadii uu naca la kulankayga anna waxaan naca la kulankiisa rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ku dadaala qiyaamul leylka dadka idinka horeeyay waxay u hayd faraj Allah subhanahu wa ta'ala way idin dhaweysaa dambiyada ka masay xumaanta hore u soo gashana dambi dhaaf ay ku tahay xanuunada jirka ku dhaca oo dhan ay waxay u tahay daawo qiyaamul leylka xasuusnaa mar walba inaad dhalatay adigoo ooynaya dadkana ay qoslayaan amal wanaagsan samee si aad u dhimatid adigoo qoslaya dadkana ay kuugu ooyaan waa lagu aasi doonaa si walbaad u qiimo badan tahay waana lagu iloobi doonaa si walbaad muhiim u tahay ee ka tagraad qurxoon iyo amal wanaagsan si ay dadku kuuga xasuustaan kuuguna duceeyaan Abdullah ibn Mas'ud Allah karaan maqday rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu weydiiyay amal la sameeyay midka ugu khayr badan rasuulku wuxuu ugu jawaabay salaada waqtigeeda lagu tukadaa wuxuu weydiiyay hadana rasuulku wuxuu ugu jawaabay waalidiinta oo baari loo noqdo wuxuu weydiiyay maxaa kale rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ugu jawaabay jihaadka dar Allah loo galaa walaalahayga muslimiinta ah ma jiro qof 24 saacadood farxad ku dhameeysta waxa laga maarmaan ah in uu la kulmo murug ciriiri iyo culays hadii aanad keensanin murugtaas qof kale ayaa ku sababaya sidaas darteed qofka aqliga badan waa qofka isku xiray Allah wax kasta sababa oo noo qadara dhageyso ciriiri miyaad dareemaysaa murug miyaad dareemaysaa farxad la'aan miyaad dareemaysaa waxaad dareemaysaa inaad israbto inaad faraxdo oo aanad farxi karin ilaahay ayaa halkaas siiyay قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومعناه هي قفك الذكر الله كسوه الجيسته وحا أسقناتي نلال مروق له فيري كأن السعادة ألا بذكر الله تطمئن القلوب وما حي كسوه الجيسي ذكر الله والله أو أنا تحسن حسن الله أضم حقوسن ناتي نلال عديلي فإن له معيشة ضنكا إلهي يدinku dhaarshay waa maxay faa'iidada idinku jirta adduunka oo ku balaarta laabtaadan ee ciriiri gasho waa maxay faa'iidada ogsoonow mar walba si kastoo aad u murugsanaataa in uu Allah kula jiro wax kale oo ogsoonaata in ibni aadanka oo dhan ay ka wada mashquulsan yihiin laakiin Allah subhanahu wa ta'ala kama mashquula adoomadiisa kamid ah oo habeen walba wuxuu u soo dagaa si uu adoomadiisa uga dambi dhaafo waxa jira qof haysta hanti adduun laakiin salaabtiisa ay ciriiri tahay waxa kale jira qof degan guriga laakiin se qanacsan ilaahay wuxuu u qadaray inuu siiyay sababtoo ah ilaahay ayaa laabta waasiciisi oo sidoo samada u waasiciyo oo kaleete maxaa ka qurux badan oo ka farxad badan inuu ilaahay kuugu deeqo laab waasac ah iyo qalbi furan Anas bin Malik wuxuu dhahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu shaqeynayay 10 sano weligiisna muusan idhiin waxaan sameeyay weligiis maxaa u sameeyay muusan idhiin waxaan sameeynayna weligiis maxaa u sameeyay weys muusan idhiin rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri dadka naxariista badan waxa uu naxariistaa Allah subhanahu wa ta'ala oo naxariista dadka dhulka jooga hadii naxariistaan ahlus samaa waxa ugu caqli badan afar qofka adduunyada ka tagay intasan ayada ka tagin iyo qofka rabbigiisa raali galiyo intuuna la kulmin iyo qofka qabrigiisa diyaarsaday intaana la gelin iyo qofka salaada tukada intaana asaga lagu tukanin
rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri waxaan zaciim idinkaga ahay guri ku yaala jannada barta ugu sokaysa gurigaas waxaa iskale qofkii muranka iska dhaafa xataa hadduu saxan yahay iyo guri ku yaala jannada bartamaheeda gurigaas waxaa iskale qofkii beenta iska ilaaliya xataa hadduu kaftamayo iyo guri ku yaala jannada barta ugu sareysa gurigaas waxaa iskale qofkii akhlaaqdiisa wanaajiya nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofka muslimka xaq uu leeyahay qofka kale muslimka waa leeyahay haddii uu ka hor yimaado salaan haddii uu ku casuumana ajiib haddii uu kula tashado waani haddii uu hindhiso walla uma hadceliyo ducee haddii uu xanuunsado booqo haddii uu geeriyoodo meedkiisa raac rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu dhahay waxa idin imaan doona qoomam raadinaya cilmi waxaad ku dhahdaan soo dhawaada dardaaranka rasuulka sallallahu alayhi wasallam wanaajiyaana dardaaranka rasuulka